maanta haddii aad dareemayso daal, niyad jab ama in nolosha ay kugu adkaatay, caqabado badan ay ku hareeraysan yihiin, waxa kaa maqan ee kugu weyn inaad hantiso. Ha quusan, sii dhabar adeeg, maxaa yeelay nolosha way adkaan kartaa, haddana waxay leedahay dariiq looga gudbo. Qofka maanta quusta berri ayuu ka sheekayn doonaa guusha, isagoo ka qoomamaynaya wixii uu dulqaad iyo dhabar adeeg uu ku waayay. assalaamu calaykum, waxaan ahay qaasim maxamed. ku soo dhowow mowduuceena maanta. kuhanweynida gaarista meelaha sarsare ee nolosha ma ahan hami fudud uu qof walba xaqiijin karo marka laga reeba hal qof, waana qofka sii dhabar adeega si kasta oo ay caqabaduhu isku bedbedelaan inta uu ka gaaraya hamigiisa. waxaa jira dad badan oo riyooyin waaweyn leh, laakiin ma gaaraan halka ay ka rabaan nolosha inay ka xaqiijiyaan, sababtoo ah waxay sugayaan qof kale inuu si maalinle ah ugu dhiirigeliyo gaarista hankooda. waxay sugayaan erayo qurux badan, garab istaag, ama qof mar kasta ku yidhaahda waad awooddaa, waadna gaari doontaa. laakiin xaqiiqda nolosha waa tan: maalin walba ma heli doontid qof kugu dhiirigeliya hankaaga. maalin walba ma heli doontid qof kaala shaqeeya gaarista halka iyo waxa aad ka rabta nolosha. maalin walba ma heli doontid qofku taageera kuna garab siiya ilaa aad ka gaarta bartilmaameedkaaga, waayo qof kasta waxaa shaqo iyo mashquul ugu filan shaqooyinka naftiisa hor yaalla. sidaasi darteed waxaa lagaa rabaa inaad barato sida aad naftaada u dhiirigelin lahayd adiga, xitaa haddii aadan haysan taageera midka ugu yar. ila fiiri sheekadan cajiibka ah. waxaa jira nin maalin kasta geed yar waraabin jiray. dadka agtiisa joogay way ku qosli jireen, iyagoo ku dhahaya, geedkan yar muxuu kuu qabanayaa oo aad isugu daalinaysaa? ninkii isagoo dhoola caddaynaya ayuu ugu jawaabi jiray, ma u waraabinayo geedka maanta uu yahay, waxaan u waraabinayaa geedka uu biri noqon doono dartiisa. sannado badan kadib, geedkii wuxuu noqday mid weyn oo har leh, dadkana ay hoos harsadaan. haddaba cashirka ku jira sheekadan ayaa ah: noloshaada maanta ha ku qiimayn meesha aad joogto, duruufaha kugu hareeraysan, balse ku qiimee meesha aad gaari karto haddii aad sii waddo dadaalkaaga maanta. allah subxaanahu wa tacaala oo inala hadlayna wuxuu yidhi, waman jaahada fa innamaa yujaahidu linafsihi. qofkii dadaala waxa uu u dadaalay naftiisa. aayaddan waxay ina baraysaa in natiijada nolosha aysan ku xirnayn keliya rabitaan, balse ay ku xiran tahay sidoo kale dadaal. sababtoo ah qof kasta wuu jecel yahay guusha, qof kasta wuu jecel yahay hantiilo inuu noqdo, qof kasta wuu jecel yahay caafimaad inuu ku noolaado. laakiin su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah: maxaad u huri kartaa si aad u hesho waxa aad rabto? nabigeennii muxamedna sala allahu calayhi wasallam wuxuuna yidhi, ixris calaa maa yanfacuka wastacin billaah walaa tacjiz. ku dadaal waxa ku anfacayo, alla kaalmayso, hana caajisin. kani waa hadal weyn oo dhiirigelin dhab ah xambaarsan, laguna dhiirigelinayo qofka muslimka ah si uu naftiisa ugu dadaalo waxa anfacayo, xitaa haddii ay ka horeeyaan caqabadaha kuwa ugu adag. xaqiiqda noloshana waa inuusan jirin shay qiimo leh oo lagu heli karo si fudud oo bilaa daal iyo shaqo la'aan ah. abwaankii soomaaliyeedna wuxuu yidhi, lama helo wadaadow waxaan idinku hawshoone, naftaa loo hantaaqaa waxay hiigso leedahay. sidaasi darteed ku bixi adkaysi iyo dhabar adeeg wax walba oo aad uga baahan tahay nolosha, allana u tala saaro. wixii ka baxsan awooddaada isaga ayaa kaaga filnaan doonee. mar kale ila fiiri sheekadan cajiibka ah. nin da' ah ayaa la weydiiyey, maxaa kuu keenay guushaada oo sabab u ah? wuxuu yidhi, mar kasta oo aan dhaco waan kici jiray. waxay ku yidhaahdeen, maxaa kuu awoodsiiyey inaad dib u kacdo? wuxuu yidhi, waxaan ogaaday in dhulka aan ku dhacay uusan ahayn meesha aan ku noolaan lahaa. dad badan dhibaatada dhicitaanka ayay la kulmaan oo xaaladaha ayaa ku adkaada, laakiin qaar ayaa halkaas degay oo aan ka kicin, una adkaysan caqabadaha ka hor yimid. qaarna way ka kaceen oo dadaal dheeri ah iyo dhabar adeeg ayay ku qaabileen caqabadihii ka hor yimid, ilaa ugu dambayn ay xaqiijiyaan halka ay ka doonayeen nolosha. farqiga guulaystaha iyo guuldaraystaha marar badan ma ahan awoodda, waa go'aanka ah inuu mar kale istaago, dhabar adeeg muujiyo oo uu marnaba quusanin.
ugu dambayn, haddii aad hadda ku jirto waqti adag, haddii aad dareemayso niyadjab iyo culays kugu horgudban, haddii aad u malaynayso in albaabada rajada ay soo wada xirmeen, xasuusnow Alleh inuu xaaladaada ku beddeli karo wax ka yar sikimo. waxa maanta ku dhibaya ma noqon doona wax sii jiri doona weligooda. roob walba wuu joogsadaa, habeen walba waagu wuu baryaa, dhib walbana dhammaad ayuu leeyahay. allahna wuxuu ina leeyahay inna maca alcusri yusra, dhibka waxaa la socda fudayd. aayaddan aad u fiiri, alla ma dhihin dhibka kadib ayaa fudayd imaanaya, wuxuu yidhi dhibka waxaa la socda fudayd. taasi waxay ka dhigan tahay in xilliga aad dhibka ku jirto ay jirto raxmad iyo furfurnaan kuu soo socota. sidoo kale xasuusnow, riyooyinkaaga ma dhimanayaan ilaa adigoo aad ka tanaasusho oo aad isaga harto rumayntooda. hagaag, inta aan goordhow ku wada kulmi doono muuqaalka xigana waxaan ku leeyahay guulayso goor walba. aad baad ugu mahadsan tahay daawashada muuqaalka. mahadsan.